Bismillahi Raxmaani Raxiim. Bahda gaarsiiya mar kale inta soo dhawaada. Maanta waxaan qaadan doonaa cashir kale oo muhiim ah oo ka mid ah cashiradeenii kooraska Microsoft Excel. Tobankii cashir ee ka horreysay cashirka maanta aan qaadan doono waxaan ku qaadanay Excel interfaceska iyo meelaha ay ku kala yaalaan. Waxay u badnaayeen cashiradaas asiiro theory ah oo aan ku sharaxayno featureska uu leeyahay Excel. Maanta waxaan bilaabi doonaa qaybteennii kale ee ah inaan practicalka gudaha u galno. Cashirkeena 11aad ee maanta qaadan doono wuxuu ka hadli doonaa waxa loo yaqaano autofill. Autofill macnaheedu waxay tahay markii aad ka shaqaynaysid daatooyin tiro badan Excel wuxuu kuu ogolaanaa inaad numberska, date-ka, days-ka, monthly-ga ilaa waxaas oo dhan inaad ku samayn karaysid si automatic ah. Marka waxaan qaadan doonaa cashirkaas ku soo dhawow cashirkeena maanta. Kooraska waxaa kusoo kordhinay in documentiga aad kala degi kartid qaybta hoose ee description-ka YouTube-ka si aad practicalka u samaysid. Documentiga wuxuu kusoo doonaa instruction-ka, dimensionska, shaqooyinka practical oo adiga aad samaynaysid iyo answer-kii practicalkaaga qaab u dhow oo laga shaqeeyay kadibna aad la barbar dhigi karaysid taada wax kuu soo baxay iyo answer-kiiga inay same yihiin. Autofill-ka waxaan kusoo sheegnay in uu kuu fududeynayo si automation ah inaad u buuxisid numberska, date-ka, monthly-ga. Tusaale ahaan dimension-kan ama scenario-ga wuxuu sheegaa items dukaan ah ayaa la rabaa in autofill loo sameeyo. Numberkan oo kale marka arkaysid waxa lagu sameeyay autofill ama ilaa 10 item ay yihiin. Taariikhda waxaa lagu sameeyay autofill. Totalkana sidoo kale waxaa lagu sameeyay autofill. Marka sidee marka loogu sameeyaa? Markaad soo gasho practice qaybta practice-ka waxaan samayn karnaa 3 qaybood. Kow waxaa u baahan tahay marka horeysa numberka ama date-ka inaad qortid ama totalka aad rabtid ama days-ka ama monthly-ga waxa ay noqonayso. Markii aad qortid kadib waxa kuu furan inaad halkaas calaamadda saartid. Markay noqoto plus-ka madowga ayaa loo yaqaanaa autofill. Waxaan samayn karaa haddii aan double click siiyo wuxuu ii sameynaa numberka inuu sidiisii ku soo celiyo. Tan halkan ayaa furi doonaa fill series ayaa leh. Automatically wuxuu ii sheegi doonaa inta row ah haysto column-kan oo ii select garaysan inay yihiin 10. At the same time waxaa kaloo samayn karaa inaan soo jiido halkan anigoo haya click-ta koowaad right click-ta inaan halkaas ku keeno danne aan sidii hadda kale autofill ayaan doorto. Habka saddexaad ee lagu samayn karo waxay tahay inaad dooratid dan markaa click siisid aad qabto control halkaas ku soo jeedid oo arkaysan numberka si isku bedelayo. Ayadana waxaan ku samayn karaysaa inaad numberska kale asaas ka dhigtid. Xarafna waa ka hormarin kartaa 18203 oo kale si aad numberkaas aad u sii raacdid. Date-ka markii la joogo waxaan qoranaynaa taariikhda ugu horeyso dan wixii ka dambeeya isaga ayaa loo bedeli doona oo loo sameyn doona. Marka tusaale hadda waxaan ku jirnaa bishii 8aad kowdeeda 2026 isaga soo qabsan doono magacahan. Wax yar waxay ka duwan tahay numberka. Tusaale markii aan double click siino si automatic ah ayuu numberska u sameyn doonaa. Laakiin haddii aan sameyno inaan ku soo jiidno ayadana wuxuu sameyn doonaa si automatic ah inay numberka uu isku bedelo taariikhda maalmaha si isugu xigaan. Laakiin sidii hadday ahayd markii aan click control la qabano wuxuu sameyn doonaa inuu halkii taariikh kugu soo celiyo. Tusaale sales-kan waxay dhaceen maalintan kaliya marka u baahanta ama qayb ka mid ah ayaa maalintaas dhacday kadib waxaad samaynaysaa inta aad rabtid ayaa ku geynaysaa wixii ka dambeeya dana double click ayaa si doonaa si uu sii socdo. Totalka markii la joogo waxaan sameynaynaa inaan marka ugu horeysa aan sameyno totalka tusaale ahaan si toos ah ayaa isugu dari karaa dhowr qaybood ayaa jirta. Qaybta markay tagno numberska ayaa ku baran doonaa laakiin short way isticmaala hadda. Haddii aad double click siisid si automatic ah ayuu kugu sameyn doonaa. Totalka wixii dhacay ama oo aan isku geynay ayaa halkan ku sameyn doonaa. Totalka guud markaa u baahan waxaa leenahay sum kadibna waxaad ku soo heli doontaa bracket-ka waxaa kuu sheegi doonaa lacagta la expense gareeyay ee lagu sameeyay. Marka intaad samaysid dan
questionskaaga ama keygaaga ku fiiri sida kusoo baxday inay is leedahay qiimaha. Aad ayaa u mahadsantihiin. Casharkeena maanta halkaas ayuu ku noo egyahay.